kuusa markaa idahayso dabada intay soo dhigatay naa igu inaa ugu tiri naa igu dhihi maada caynin oo yaraan hadii indhaha anu bas leeysho isu aadi lahayn walaa toban gudadeed waxay ka dhici lahayd ha laakiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود ياشا قيمها له وعن برنامجك إنكو باهد دونا قبردي نيروبي لغو ديلايي لغو جير ديلايي كدبنا موقالك لغا سو دوبايي oo dadka Soomaaliyeed oo damiirkoodu nool yahay sida weyn uga dhiidhiyeen uga caroodeen ayaa waxa ay ka soo hadashay sida wax u dhaceen sida wax u jireen meesha uu ka soo bilowday waxa sababay in la dilo la isugu tago dhanka kale waxa ay soo bandhigtay codad cadeyma ah sidoo kale waxa ay xaqiijisay oo ay ka hadashay gabdhihii ay Soomaalidu ku eedeynayeen oo codadkoodu kuwa u eg laga maqlay sida Rasmi Reis iyo Natasha oo ay Soomaalidu dhahayeen ama ku eedeynayeen in ay kamid ahaayeen dadka gabadhani jirdilayay isla markaasina muuqaalka ka soo duubay ayay ka hadashay waxa ka jira mabemba marumba ma waxba ka jira mees yaqaaneen ma kamid ahaayeen gabdhihii jirdilay oo muuqaalka ka duubayay oga muhiim ah ayaa ku jira oo ay ka hadlaysaa gabadhani waxyaabo badan oo dadka ka hadlayay ama dadka Soomaaliyeed oo dhanba ka qarsanay ayay soo bandhigtay gabadhu marka horese halkani waa Alfa Media Group hadii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka halmaamin si aad uga mid noqoto saaxiibaha halkan ku xiran fadlan barnaamijka la garay si aad uga qayb qaato barnaamijka ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan saaxiibayaal gabadhu hadalkeedu aad ayuu u dheer yahay waxaynu soo qaadan doonaa meelaha ugu muhiimsan waynu soo koobkoobaynaa si aysan daqiiqaduhu inoogu dheeraanin waxaynu ku horeynaynaa maxaa ka jira Rasmi Reis iyo Natasha oo lagu eedeeyay in ay kamid ahaayeen gabdhihii muuqaalka ka duubay markii gabadhani la jirdilayay la sugu tagayay inuu isla ogaano iyada ayaa noo sharaxaysa aniga xariidadeema gabadha kale kiisani waay horta dhanka gabadhani waxa ka hadlaya Natasha horta baayis ma naqaano waligeena sanana safiican caawan isku kaarayso infaanti marka qofka wax loo geystaa aniga gabadhani meesha ma joogin maanan isaqoon caawan isku kaaykeena safiican ma sha Allah marka wax meesha sidoo jirin markaad sheeganayso okay Natasha ta aqoon ma leeyahay gabadha TikTok digaal ma jirin mana arkin gabdhaani siisana gabdha kale to sidoo kale maxaa ka jira sawirka baraha bulshada la wareejinayay ee ah gabar madax xiiran isla markaasina ay daqarro fara badan ama nabarro fara badan ay ku yaalaan maxaa ka jira in ay gabadhani tahay ayada ayaa inoo cadeynaysa gabadha madax xiiran ani meeyay Soomaalidu qasdan gabadha waxa waaye qolka gabadha oo madax loo xiiray ayadana gorolaashana laakiin ani ayadana ay okay ani gabadha oo video laga clipka laga duubtay oo madax dhulka loo garaacay ani okay ma sha Allah sida aad la socotaan badankiinba muuqaalka gabadhani laga duubay ee lagu jirdilayo waxa ku jiray wiil ayaa ku jiray hadaba wiilkii ku jiray ee gabadhani markii la dhagareynayay ka qayb qaatay dhagartii gabadhani loo geysanayay ma ay taqaana maxay ka ogtahay wiilkan gabadhani ninkaas si life ma taqaana ma yaasixta ma aqaani rasmi waa ka aqaana okay markaana gabadhu waxa ay noo sharaxaysaa wixii sababay dagaalka iyo sida uu ku bilowday iyo waxa gaarsiiyay heerka ah in gabadhani lagu soo duulo isla markaasina ay isugu tagaan rag iyo dumar badad isugu jira yacni in ay dhagareeyaan dad intaasi leeg oo Soomaali ah inay isku raacaan halkan gabar in ay dilaan isla markaasina ay gaarsiiyaan heer ay suudaba hadaba maxaa sababay ayada ayaa inoo sharaxi doontaa أنا لا كبقى بن آدم كبقين ويسوي لا سيد واحد دعي ولا يلوق هاي لأنت مشان كشيء ما شاء الله لا القالي مشان حاجتي بدان ذا صحابنا هم ضد دي سيخانا هم وضد كيس كبسو كحتة في ملكا واسكحبوا هاي صحيحين ما شاء الله أوكي مركو حد علي حبين هذا كمذا أنا أرتفيل اسكستحبا مع خانا حياة غلطن وأنا اسكستحلي bal Soomaaliya ogaada bal gabadhani dhagarta ay sheegi doonto waxaan aragnay oo kaliya iyada oo muuqaal laga soo duubay ee la dhagareenayo la jir dilay ayaynu aragnay laakiin dhagara kale aynu ogeyn ayaa loo geystay ayada ayaa inoo sharaxaysa clip aliga duubtay ama jifo oo habne kida wabti videoga markaa gabadhani dad fara badan ayaa waxay aamineen in ay iyadu gardareed yacni in ay iyadu dadka kale muuqaal gardara ah ka duubtay si ay u cadayso marka in ay muuqaal ayada laga duubay ayay waxa ay tustay qaaliladan iyo Rasmi Reis
rasmi rays iyo qaaliladana way ugu marqaati kaceen in videogaasi jiro أنا هي رسمي وعربي فيديو بس فيديو يسوى بذكرنا لكن وواحد قبر كستانا عن وبدي جتونه because فيديو بس قبر عن أيضا شيفته قف إسكتور داية أي فيديو لقطه أوكي نو أدي أنا واسحلة مركز فيد سحلة دين قدام ويسوي شيء مركز سحناي كل كان سكتي وان سحلة دين مرة ذا غير دعلي والي جوي أنا ونك هابني كده أنت نوصل خابن وأنت قلتنا عادي كده على الجو وان تشيلولينا إلى إننا تجيات هذه فيديو ممكن يقدوا يا موجين حلي صدر مردو بالي صدر فيديو جبنا كي وشو بيلا يبقى جاهد وقت لا دوبي وقت gabdhaha gabadhani jirdilay isla markaasina muuqaalka ka duubay way is yaqaaneen dad isku dhow ayayna ahaayeen marka ayada meel xad galin oo yiraahdo shishin tree yes dad kale inay lagu yaqaan xaabad galin hadana gabdhaan doon oo u guureen anna gooni baan soo guuray marka hore dad isku dhow baan okay taas dimala videogi waa liiga nixiyay waan hay because qof waliba in already banaanka keen qof maanta oo dhan jirto ma jirto ceeb waa ceeb sax anoo qaawan baa la soo dhigadan waan hay waaya waxaas wixii jira dhaad dan waa fikre agee lagu soo dhigo markaas liima soo dhigay adile lagu soo dhigo aniga dheeman garada la soo hadda ogaada gabdhihii ay saaxiibka la ahayd oo ay saaxiibka dhow ka dhigatay isla markaasina ay aad isugu dhawaayeen ayaa waxa ay ka duubeen muuqaal waa ayna ku rakaateeyeen waa marka oo in lagu rakaateeyo videogi okay videoga ay qalka laga duubay adin siloodina hadda waa ognahay markaan rakii waxaan dhahay waxaan joogaa wax kalate waan weydiineen maliga soo dhigo qof ma loo diray ما يخف لا ما دنا قفني مجاري نهاية أكتب لا يا كادوكتب لا يعني الصو إذا استقنا كل تخف في دولته waxaa xusid mudan labada gabdhood ee horaan isku dhacay yacni gabadha muuqaalka duubtay iyo gabadhani laga duubay gabar kale oo labadooda saaxiib la ah ayaa waxa ay ka dhex shaqaynaysaa labadooda sidii ay isugu diri lahayd dhibkan dhacayna gabadhii ka mas'uulka ahayd weeyaan marka video clip markii la soo diray rakaataan waa azin dayman xog qaadan bay ka ahayd dhankeyga arrinta yaabka badan oo halista ah ayaa waxa ay tahay in dumarkii saaxiibaha ahaa dhexdoodu israkaateeyaan yacni gabadhii in la rakaateeyo sida ay caddaynayso lacag ayaa laga rabay dhan lacag bay ahayd gabadhu ayada qudhiiduba sidii ay caddaynayso waa lacag waxa lagu rikaateenayo oo laga rabo muuqaalkeeda sababta looga duubay isla markaasina lagu cabsi gelinayo in baraha bulshada la soo dhigayo haddii aysan lacag bixin waa yaab iyo amakaag gabadhii markii la rikaateeyey waa ay fikirta marka qaabka ay uga badbaadi karto rikaatadaas lagu sameeyey si aysan u dhicin in baraha bulshada muuqaalkeeda la soo dhigo ayay iyaduna waxa ay ku fikirtay oo ay ka tustayba inay iyaduna muuqaal kale oo iyaga laftirkooda ay ku rikaateynayso inay ka duubto video markii la diro fikire and then okay that do script kiisana waan xiraaya first thing meesha waxa yaalo jirka yes dee waxaan ka kaftama maahan